مسؤوليتنا ay horkacayaan taliyaha ciidanka dadamiska ee Soomaaliland Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa waxay socdaan indhaindhayna ku tageen saldhigyo ciidamada dadamisku ku yeelan doonaan degmooyinka Macallin Haaruun iyo Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa inta ay kormeerkaasi ku jireen mas'uuliyiintani waxay la kulmeen ciidamo kala duwan oo ay soo gaadheen dhaawacyo xilli ay ku guda jireen howlgallo ay wax ku badbaadinayaan ugu horreyn waxa ka warbixiyay ujeedada kormeerkooda wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye iyo taliyaha ciidanka damdamiska Axmed Sawaaxili runtii waa ku ammaanayaa taliyaha iyo ciidankiisa hawl baa xadlay dadka u hayaan hawl mudan in wax laga qabto oo gacan lagu siiyo ay dadka u hayaan ma uun meel dab ka kacay kuma yaacaane daadadka iyo roobka muxuu ahaa daaya barakaysan dhibaatooyinka la yimaadaan oo gurmadaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo joogto waxaan leeyahay u hiiliya ciidanka dadamiska ugu hiiliya hawsha ay idin qabanayaan taasaan idinku boorinayaa maanta waxa la sheegay ilaa 5 ciidan ah in gaar la jiirsiiyay unan ayar kibir inta halkii ay joogeen ugu yimid jiirsiiyay gaari dhakhtarka yaala goob kastoo ay tagaan dhibaato ka soo gaadha maanta waxa farxad weyn oo ah in aniga iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye inaan soo wada kormeerno saldhigyada ciidanka dabdamiska loo dhisayo tan maanta aragtida aad arkaysaan waa saldhigii labaad oo noqonaya saldhigii maxaa la yiraahdaa Ibraahim Koodbuur aad buu ugu filan yahay aad buu fiican yahay maqsinadii xafiisyadii buu leeyahay hangaradii baabuurtu leeyahay masaajidkii buu leeyahay stooradii buu leeyahay 4 gaari ba ku xiran kara 2 kadin buu leeyahay oo laga boodi karo marka dawladdu ma yaraysan oo waxa ku tala jirta in xaafadaha oo 8 xaafadoodba in laga dhiso maxaa la yiraahdaa saldhigyadii marka dadweynaha waxaan u sheegayaa inay soo dhaweeyaan saldhigyada in gacan dawladda iyo dabdamiska ay ku siiyaan had iyo jeer dadweynuhu waxayna weydiiyaan su'aasha kaleena weydiiyaan waxa weeyaan saldhigga leedihiin baabuurta farabadan waa jaam maxad xaafadaha uga dhigan weydeen saldhigyo waa kan waanu bilownay ugu dambeyntiina mas'uuliyiinta iskuulka aqoon-yahan oo booqasho ku yimid xarunta ciidamada dadamiska ee magaalada Hargeysa ayaa waxay isla xaruntaasi ku guddoonsiiyeen shahaado sharafyo iyo bilado kala duwan ciidamada damdamiska Soomaaliland ayaa waxa dugsiga aqoon-yahan oo ka socdo maamulihiisa ahay magacaygana la yiraahdo Cabdicasiis Maxamed Yoonis waxaanu u garanay inaanu shahaado sharaf guddoonsiino ciidanka dabdamiska qaranka Soomaaliland hawlgallada maalinlaha ah ee khatarta wata ee ay maalin walba iyo saacad walba u taagan si ay u xakameyn lahaayeen وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون عالمي Universal Hargeysa.